waa atoorayaal iyo laadaro cusub oo u hamuun qaba jiritaanka aflaanta booloxooftada feerka legdinta xeelada dagaalgalka iyo difaaca ayay ku soo bandhigayaan xeebta Liido. Hibadiisa Jilin ayaa soo bidhaantay 10 sano ka hor mar uu ka soo muuqday filim caan baxay oo afduub ahaa kaasi oo Chinese ay ku jilayeen Mombasa. hamigaas rumayntiisana habeenuu ka seexan waayay Muqdisho ayuu soo arkay inuu ku soo bixi karo waana halka ay ku kulmeen Deeq Diamond oo Koonfur Afrika uga yimi sidii uu noqon lahaa atoore caana. waxaa jirto 2010kii filim aan ka soo muuqday oo markaas loogu jilay Mombasa Kenya. filimkaasi dad Chinese ah ayaa watay marka sida aniga la sheegay xogta waxay ahayd in oo dadka Chinese ka ah afduub loogu heystay gudaha Soomaaliya. marka aniga qayb waxaan ku jiray oo ah in markaas ciidankii oo markaas mission fulinayeen inay markaas xaafadaha ay soo galaan dagaalka markay qaadayaan oo kale in aan sahmiyo aan sheego. kooxdan aflaanta ku jisha magaalada Muqdisho waxay heleen tababar isku mid ah kaasi oo ka dhigay kuwo isku qaab wuxuu sameeyay isla markaana isla jaan qaada balse waxa kaaga digaya adigu aan tababar sameyn inaad isku daydo akshamada ay soo bandhigaan sababtoo ah qaarkood waa halis lagu dhaawacmi karo dhimashana sababi kara. jilaaga loogu taageerada badan yahay kooxdan Deeq Diamond ayaa kaliyeystay Hibo Jilin iyo ficilo laga soo minguuriyay atoorayaasha Bollywood iyo Hollywood waxa uuna ku taamayaa inuu noqdo jilaacaana. والله أرتوي دي بدنا كسبر ناي وحنصب بلامني بحبت ليدان كبلامني بودكا كده من واحد بلامنا إن بلامنا فير يبراتكينو فير سوقنا أصدقائنا يو أكشن ماذا في المانت بوليوود كقارك ماذا أنا هبين كليب كنا سجرته أنا حبت الإمام مركزنا أصدقائه سي مركز يوصل تجشينا أكشن كاتوس وكين. tababar joogto ah ayay xeebta ku sameeyaan waxaana dhowaan baraha bulshada lagu baahiyay filimka argudasho oo ay u arkaan inuu bilow fiican u yahay. laakiin sida taana waan isku daynaa waa hamigeena waan jecelnahay yarantiina ilaa hadda ayaan jecelnahay inaan aktar caan ah oo la yaqaano inaan naqano wadankana waxa u tarnaa wax u qaban sida fanaaniinta caanta oo u yihiin oo kale loo yaqaano anagana in aan ugu soo muuqno baraha bulshada iyo TV-yaasha iyo tiyaatarada. inkastoo kooxdani ay soo bandhigaan habjiliin dadka dareenkooda ka yeeli kara farxad murugo niyad jab iyo rajo haddana ma helaan maalgelin sida saaxiibkayga walaalkayga Cabdifatax Bulshaabi oo kale asay ugu dhiirgeliyo xataa marmar kharashkaas bixiyo muuqaal noocaas soo sameey muuqaal wadani soo sameey asay ma fahanti marka ilaa hadda taakulan buuxdo dawladda xageeda ama dad shacab xagiis kama haysto laakiin balse awoodeeda isticmaalay ilaa hadda dad badan oo isugu jira curiyayaal iyo jilaayo ayaa ka qayb qaata filimada caalamka loogu jecel yahay kuwaas oo badankoodu ka soo baxay dugsiyo iyo jaamacado lagu barto sameynta aflaanta waana halka ay ka soo minguuriyeen atoorayaashan Soomaalida ah. filimaanta ayaa qarnigan noqday kuwo hanti badan laga tabcado waana tanjilayaasha ka yeeshay maalqabeeno magac ku tartama shirkadaha maalgelinta sameeya ayaa iyaguna faa'iido weyn ku qaba. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.